markana aynu eegno magaalada Muqdisho gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax ayaa BBC-da u sheegay in hadda kadib magaalada dhexdeeda ay mamnuuc ka tahay in hubka lagu qaato amaba lagu iibiyo. wariyaha BBC-da Axmed Xaaji Xasan ayuu waramay. amniga magaalada Muqdisho hadda xaaladdeeda aad u fiican tahay marka loo eego bil iyo bar ka hor booliiska amniga ee dadku ay dareemi jireen hadda wax badan iska bedelay ciidamadii magaalada cusba oo la tababaray oo loo qaybiyay ee booliiska ahana wax badan ay amniga magaalada ka bedeleen feedback fiican aan dadkii hadda ka soo laabtay oo bishii hadda ugu dambeeyay si fiican ay ula falgaleen shacabka qaraxyadii dhici jiray hadda waxaan u maleynayaa bil iyo bar waxba ma dhicin ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa inuu intaas nagu ekeeyo laakiin waa la dadaalay ciidankuna waxay ku dadaaleen in mar haddii howlgalla jiraan ciidankii shacabkii way shaqeynayaan magaaladii jidadka soo gala iyo goobo ka mida wax farbaxsan kale waa jiri karaan laakiin maalmihii dhaweeda qaraxyadii soo kordhay waxay ahayd isbedelkii la sameynayay oo bacdama nabad sugidii iyo booliskii laisku shaandheeyey oo ciidankii nabad sugidda ay boolis noqdeen intii yareedoo kale guurka lagu jiray bay xoogaa culaysku kor usoo kacay howlgalka suuqa bakaaraha oo kale marka la fulinayo askarta burcadda qaar xabad ku dhuftaan daraadoo kale mid ka mid ah xabad lugta oga dhacday marka maxaa sababaya in dhalinyarada xabad lagu dhufto oo askartu iyo ayaga ay dagaalamaan suuqa bakaaraha waa ogtihiin culaysaa ka jiray dadka suuqa ku ganacsadana cabasho badan ay soo gudbiyeen inta aan howlgalkan bilaaban dadka ciidanka hadda ay dileen oo tuugada ahna dad ayagu dhibaato wada waayo oo diiday in isdhiibaan qofka hadduu hubato oo qor xabad uu soo ridayo ama uusan isdhiibaynin of course ciidanku tallaabay ka qaadayaan inta ayagu ay dhibaatay lahaayeen by the way meelaha ay wax ka gaareen ama looga dhufta ma aha meelo ay u dhimanayaan lugahoo kale looga bilaabaa ilaa qofka uu asagu go'aansado inuu dhinto oo xabadda uu sii wado dadka qaar waxay ka cabanayaan ama ka andacoonayaan in askarta ay qayb ka yihiin dhacaa iyo amni xumada bal ka waran arrintaas ama boolis ha noqdaan ama ha noqdaan ciidankii hore lasoo wareejiyay hadda ciidanka magaalada ka howlgalaya waa ciidan tababaran oo shacabku ay runtii aad u ammaaneen xataa la macaamilkooda kulli horta tababara dib loogu celshay intii dhaqanka xumeydna ciidanka hadda kuwa ka howlgalaya magaalada kuma jiraan waa dhici kartaa qof iyo labo laakiin ayagana waxay ogyihiin cawaaqibka ay kala kulmayaan haddii ay dadka dhibaateeyaan maxay soo kordhinaysaa haddii amniga la sugaayo ciidamo dheeraad la soo kordhiyo mar haddii hub suuqyadii lagu iibinayo oo suuqa hub yaallo oo dadka iibsan karaan qori ama rasaas ama bam iyo waxay u baahdaan hadda meel sharci ah oo aan ognahay oo lagu iibinayo ma jirto haddaa ii sheegtana waa talaaban ka qaadayna laakiin maalmihii ugu dambeeyay howlgallaa la sameynayay qaybo ka mid a degmada wadajir oo ahayd goob ka caagan ciidanka oo hubna lagu keydsado dadka joogana aysan soo dhexgeli karin ciidankii booliska talaaban ka qaadnay hub badanna waa lagu soo qabtay oo nimankaas ama ha ka ganacsadaan ama hub magaalada inteeda kale inta lagu soo dhibaateeyo lagu keydsado ha noqoto hadda anu meela oga hub lagu iibiyo ma jiro meel qarsoodi waa dhici karta haddaan ogaanana talaaban laga qaadaya hub ma la iibin karo ma la iibin karo hub magaalada dhexdeeda goob cirtoogta la yiraahdo magaalada dhexdeeda ku dhex ooli karta ma jirto